ku xidhnow badda cas 24 TV. ciyaartooyadii hore sanadihii 80-maadkii iyo sidoo kale 90-kii ka ciyaari jiray gudaha magaalada Boorama maanta garoonka Moomin Doorar waxay ku qabteen ciyaar lagu xuseeyay laguna dabaaldegayay dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo maanta ay ku beegneed maalinta ay xorriyadeeda qaadatay dalka Jamhuuriyadda Djibouti. ciyaaryahanadani ayaa ah kuwa waqti hore ka ciyaari jiray garoomada ku yaala gudaha magaalada Boorama walow haatan weli ka sii muuqdaan garoomada qaar ka mid ah kooxdani. ciyaaryahanadani hore oo dareenkooda maanta cabiray ku aadan ciyaartani ayaa waxay yiraahdeen maanta oo ay tahay 27 Juun maalinta xornimada dalka Djibouti loo dabaaldegayo munaasabadan kubadda waa ciyaartoygii hore ee gobolka Awdal iyo Djibouti-ba aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Samaroon oo aanika maalinka maanta soo qaban qaabiyay ciyaartan aad u qurux badan leh aad iyo aad halkan uga salaamaya ummadii reer Djibouti meel kasta caalamka ka joogaan gaar ahaan xukuumadda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisa oo dhan iyo ummadda reer Djibouti meel kasta joogaan oo u celebraynaya maanta ama u dabaaldegaya xuska maalintii qarannimo ee dalka Djibouti. maanta halkan hambalyo uga diraynaa annagoo dhallinyaradii cuslaatay ee gobolka Awdal xukuumadda Djibouti iyo shacbigeeda oo u dabaaldegaya sanad guuradii xorriyadooda. sidaa darteed waxaan leen markay isaga qaateen maadaama aan dad walaalanahay waxaan leeyahay goor gaaban hadalkeed gaaban baa leeyahay dadka reer Djibouti waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaashada. Samaroon oo xafladna soo qaban qaabiyay oo xafladana ku saabsan qaranimada Djibouti ilaahay oo barakeeyo annagana ha naga daba barakeeyo. dan waxaan ku xigsiinayaa ciyaartooydii cuslaaday 90-aadkii 80-aadkii wixii ciyaarayay oo ay ka mid yihiin Samaroon Saad aduu dawal dhayahay xafladan qiimo xoog leh aan ugu yeelay uu abaabulaha Musa Samaroon uu ku maadsan yahay iyo dhalinyarta halkaas ku waxa kala salaamaya bahda sportiga 80-maadkii ilaa 90-kii ayay soo gaareen aad baan u salaamaya inta dibadda joogta inta dalka joogta waxaan intii dhibatana Allah naxariista ayaan leenahay weeyaan ciyaar dadkii maqaadiiradii 80-kii ilaa 90-kii u dhaxeeyay 10 sano dadkii ciyaari jiray dad dhaafsan way jiraan 70-meeyada aakhirkeedii ciyaari jiray laakiin 80-kii bay u badan yihiin dadkii 80-kii ciyaarayay marka ciyaaruhuna dabcan waa dadka isku keena walaaleeya dadkani waa kala jaanjaan ciyaartaan baa walaalays ismana yaqaanaan runtii haddii dadkan dambe isbarin dad lays yaqaanay waagii laysma aqoon magaca lama dhaafin jirin runtii tii weeyaan ciyaarta waa asaaskeedana insha Allah kulley xorriyada isku soo beegmay 26-kii Juun oo Soomaaliland ahayd oo Ingiriiska laga qaatay Djibouti oo maanta ahayd oo iyaduna Faransiis ka qaadatay rag naga waaweyn midinkan hadda dhankan iga xiga Mijin baa la yiraahdaa dhalinyarada hadda ma yaqaanaan 9-kii gobolka ugu fiicnaa buu ahaa walaalkii baad kulley garanaysiin Rooje oo isna qoyska dhan uu ciyaari jiray runtii halkan iga xiga Xaamud oo isaguna Djibouti halkan ba ka ciyaari jiray Saad oo Muqdisho iyo halkan ba ka ciyaari jiray ciid sidaas leeg oo isna waxa u dheeraaba orodada iyo ciidna ahaa marka waxa weeyaan ujeedadu waxa weeyaan raggiina bal soo celino garoonadii lagu soo noqdo oo la kala xirin waxa ku soo xigi doona dadkii 70-meeyada ciyaarayay waana la joogtayn doona maalin uu noqon maysa insha Allah halka ku qabanay ciyaar aan u bandhignay munaasabadan 27 Juun run ahaantii waxaan isugu keennay ciyaartooyadii 80-maadkii 90-maadkii laba intaasba waxay isugu yimaadeen goobtan intii dhimatayna ilaahay u naxariisto ee waqtiyada ciyaari jirtay kullee aanu 80-maadkii wixii ka horreeyay baan ku jiray rag badan oo yuula jirayna way ciyaarayaan seedkii ka mid yihiin run ahaantii intii 90-maadkii rag badan baa ka jooga de kullee waa maaragtay intaasba waxay isu keenay ciyaartooy ahaan. waa Jamaal Umar Tube telefishinka badda cas 24 TV magaalada Boorama. markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV soo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo soo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.